Faarax iyo Xaliimo adduunkii oo dhan ay isku haystaan oo ma ahan dadkiis haysta kaliya Soomaali. Sheekada aan idin wado maanta waxa ay ku saabsan tahay ninkan Ugandeska ah oo aad ka aragteen kameradaha iyo social media gaar ahaan aaladda TikTok ee lagu magacaabo Daily Uganda. Kaasi oo 3 bilood ka hor atirishadan aad u jeedaan uga imaaday dalka Mareykanka. Halkaasi oo ay ugu soo bandhigtay in ay rabto kana bixinayso nolosha uu hadda ku jiro. noloshii hore ee ninkan uu ku jiray waxay ahayd waxa uu dhex jiray qashimo isaga oo juwaanada qashinka ka qaadi jiray wadooyinka Uganda. Waxa uu wadan jiray dhar aan habooneyn oo jajaxan sidoo kalena qaab daran. Gabadhan oo ka aragtay social media gaar ahaan TikTok waxa ay go'aan ku gaartay in ay ninkan u fidiso gurmada sidoo kalena waxa ay sheegtay in ay ka heshay oo ay jeclaatay. Laakiin balaayo ha jeclaatay ninkan waxa uu sameeyay markii ay gabadhan u soo gooday oo 3 bilood ay isqabeen oo uga soo tagtay dalka Mareykanka oo baasaboorkiisa ay haysato asal ahaan waxa ay ka soo jeedaa Philippines. Gabadhan waxa uu sameeyay in kameradaha uu ku muujiyo jacayl fara badan oo xad dhaaf ah oo gabadhan uu qabo. Waxa uu soo bandhigi jiray isaga oo timaha u shaleynaya sidoo kalena amaanaya. Sidoo kale waxa uu kameradaha ku soo bandhigi jiray isaga oo Quraan akhrinaya. Balse nolosha dhabta ah taasi ma ahayn. Marka kamerada ay danto waxa uu ku sameyn jiray wax kasta oo xun. waxa ay sheegtay in uu dili jiray, garaaci jiray, wax cunto ahna uusan siin jirin. Waxa ay soo bandhigtay muuqaallo ku saabsan iyada oo dhiigaysa oo meel walba uu ka garaacay. Waxa ay sheegtay in ninkan guriga uu ku haysan jiray gabar kale oo uu la tuman jiray. Waxa ay sidoo kale gabadhan sheegtay in finjeerka cuntada ku jirta xitaa uu ka xiran jiray si aysan u cunin. Waxa ay bixin jirtay kirada guriga, cuntada uu cunayo iyo sidoo kale waxa uu xiranayo. Sida ay sheegtayna waxa uu kaga qaadi jiray si qasab ah hadii ay diidana waa uu garaaci jiray. Gabadhan ayaa sheekadan soo bandhigtay markii ay ku laabatay dalka Mareykanka. Intii ay ku nooleed Ugandana ma aysan sameyn jirin wax dhaqdhaqaaq ah oo ka baxsan kamerada uu ninkan wato. Waxa ay soo gashay live waxa ayna sheegtay wax kasta oo ninkan uu u geysan jiray. Sidoo kale waxa ay sheegtay in Quraankan uu akhrinayo ay ahayd mid been ah oo dadka isaga gidi jiray. Waxa ay sidoo kale sheegtay inuusan tukan jirin oo uusan soomi jirin si kastana uu gabdhaha la tuman jiray. Dumarkii adduunka oo dhan way ku dhiban yihiin. Faarax iyo Xaliimana adduunka oo dhan ay isku haystaan iyagoo waliba sheekooyinka la soo tibinayo mararka qaar aad la yaabayso. Sanadkan bilowgiisa waxa social media qabsaday gabar Soomaali ah oo guursatay nin Suudaanees ah oo u wadatay dalalka Yurub mid ka mid ah. Isagoo ugu dambeyn ku booday sheegtayna gabadhaasi in uu garaacay jirdil u geystay sidoo kalena gurigii ay dejisay uu ka qaatay oo uu xoog uga saaray. Marka ma la dhihi karo sheekadan waa sheeko ka dhaxaysa dumarka iyo ragga Soomaalida oo kaliya, balse waa sheeko adduunka dhan saameysay oo dumarka iyo ragga adduunka oo dhan ay ka dhaxaysa. Laakiin hal mid ayaan kaaga digayaa gabaray, waliga nin aanan ku jeclayn haddaba socon oo haddaad ka aragto wax yar oo isbedel ah isaga carar oo ka tag ayaan ku dhihi lahaa.